dhammaan waxaan u mahadcelinayaa intii kaalmada nala soo garab istaagtay oo walaalaha muxsiniinta soo caawisay qaasatan reer Luuq maanta sida aad u jeedaan daawadayaal waxaan bixin doonaa raashin gaarayo ilaa 100 qoys haddaba raashinka bixinayno wuxuu ku saabsan yahay waa bur saliid sonkor iyo timir intaas maadaama aan garanay inaan bulshada aan qaybahooda danta yar aan uga soo qaadnay reer Luuq ayaa waxaan istusnay yaa ku haboon aan siin karnaa inta aan siin doono waa dad magaciisa badanaa danyar oo aan awoodin inay afuraan marka dad walaalaheen oo khayrka jecel oo reer Luuq dibadda jiro ayaa kaalmadan qayb kamid ah sidoo kale waxaan la hilmaami karin marnaba in ay kaalin weyn nagala qayb qaateen culimada dhalinyarta iyo ganacsatada maanta raashinkan iskama imaan waxa lagu keenay waa isxilqaan dad walaalaheen oo muxsiniin ah ayaa waxaan soo dhiibtay qayb kamid ah qaybna waxay ka imaaday isla degmadii ma bacd ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu mahadinayna awalan noo suurta galiyay hawshan aan maaragtay maanta guushan aan gaarnay ilaahiga noo suurta galiyay baa mahad iskale haddii san maaragtay ilaahi subhanahu wa ta'ala na garab taagnayn waxba ma aan qaban karin awoodnada iyo maaragtay kartida iyo fikirka iyo waxa anaga isbideen waxba kuma qaban karno ilaa maaragtay wixii la qabtay ilaahi subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka ahaadeen ilaahi baa mahad iskale marka labaad waxa mahad iskale bulshaweynta reer Luuq ganaane hadday qurbaha jiraan iyo hadday gudaha joogaanba sida maaragtay walaalahood qiimaha badan ay u garab qabteen way ku mahadsan ayagana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa saaka waa u jeedaan wixii aad soo dhiibateen ilaahay dartiisa oo la soo baxdeen sida qiimaha iyo sharafta leh walaalihiin saakayta ugu farxayaan oo hortooda u yaalaan waad u jeedaan aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala hawshan sidii ay noogu bilaabatay ramadaankii hore hadda waa ramadaankii labaad waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala fi xayaatina inta aan noolnahay insha Allah ta'ala in hawshan ay noo sii socon doonto haddaan nahay reer Luuq inta kale oo walaalaheen oo fikirkan aan ku boorin karnaa insha Allah ta'ala waa rajaynaynaa inaan la kaashano hadii Ilaahay ma idhin saakayto meeshaan waxaan ku afurinaynaa hadii Ilaahay ma idhin 100 qoys oo wajiga koobaad waxayna dadkaas ayaga aan siinaynaa saakayto saddexda qaybood oo raashinka ay tam ka kooban yahay bur iyo bariis iyo sokor waxa uu heliyo saliid iyo timir waan jeclayn inaan siino maaragtay waxa la yiraahdo caano iyo baasto iyo wax kale oo maaragtay wixii kale oo la heli karo laakiin waa ka xunnahay tabarta diiday waa ogtiin waqtiga lagu jiro iyo maaragtay dhaqaale la'aanta iska jirto insha Allah ta'ala xilligan ahayna maaragtay waa gaari doonaa insha Allah ta'ala wax sayay wax ka badan inaan isticmaalno aad iyo aad u mahadsantiin reer Luuq meel walba joogtaan sida qiimaha badan isu garab qabanaysaan insha Allah ta'ala nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa war arlada isaga naxariista ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu idinkaga naxariisanayaa samada roob la'aan jirto abaar jirto qayl jirto marka muslimiintu waxaan ku boorinaynaa insha Allah ta'ala meel walba oo joogaan inay kuwooda tabarta daran u naxariistaan si ilaahi subhanahu wa ta'ala noogu naxariisto abaarta iyo waxa walba ooga baxno oo ilaahay maarta barwaaqo noo gaarsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin qaasatan waxaan u mahad celinaynaa insha Allah ta'ala hadana reer Luuq gudaha ku nool waxaan si qaas ugu mahad celinaynaa walaalaheen qurba joogta reer Luuq sida qiimaha badan ay nooga warhayaan mar walba maaragtay wixii aan u sheegno oo baahi oo taagan markii ay uga soo jawaabayaan haday tahay dhinaca waxbarashada haday tahay dhinaca caafimaadka iyo maarta haday tahay dhinaca kaalmada iyo dadka naga tabarta daranbo aad iyo aad ugu mahadsantahay Allahu barakaatu waa in mahad celinaya dhammaan dhalinyarada iyo suxufiyiinta odayaasha culimo diinka aan ka fulinayno degmada Luuq taas oo dad muslimiin ah oo muxsiniin ay sadaqaysteen oo loo kala harin haday noqoto dadkii walaalaha ahaa oo magaca Luuq aan wadaagnay oo ku maqan qurbaha dibaddiisa dadkaas walaalaha ah oo aan u furnay sanduuqi ahaa sanduuqa caawinta akoonka caawinta danyarta Luuq akoonka asaga ahaa waxay ku soo shubteen yaan tusaynay saaka inay arkaan sadaqadoodii meesha ku baxayso iyo dadkii reer Luuq ahaa lacagihii aan ka soo qaadnay oo haday ganacsato yihiin haday bulshada kale yihiin intuba saaka waan fulinaynaa hawshii saakay tahay taariikhda bishii 12keedii bishii Abriil ayaan fulinaynaa waana barnaamijkii ahaa afuri walaalka waayo
waayo laa yamuunu axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsihi waa saaka meeshaan taalo waxaad naftaada la jeceshaha walaalkaa la jeclow dad baa la soo jeclaada walaalahood annagana waxaan nahay dadkii dhallinyarada ahaa oo isxilqaamay oo reer luuqa ahaa oo barnaamijkan culays iyo juhdi badan ku bixiyey intii nagala qayb qaadatay ajri xasanaad allah ka siiya walaalo badan baa ka qayb qaatay oo istaagay inta hadda oo hawsha nala fulinaysana ajri xasanaad allah ka siiyo bismillahi الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي بمهل سبحانه وتعالى إلهي نغري ضد مسلمين ومحوا وناقي يا خير مارتي يغانو ما كشقيو الله صنم هذا علني الناس سبحانه وتعالى محايا لي أرنتان وكلا إلهي بدك وافجي ما وحق لو كيني كرماها وحان لنا مرك الحمد لله رب العالمين إلهي ومهثن مركزتا مرضى ما يمر هربا وحان إلهي مارتا وما هدنينا يعني ومارتا خيرك ونوافجي أو نوعيض بدن له ماشي إن شاء الله تعالى وحان وجوجنا ساكا إلهي سبحانه وتعالى نقول باقي سيد الداري صدق قادرين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلهي ساسو مرهر نولها الحجير مارتا خيرك سوق على الميستا حمانتنا يعني اسك إلالية marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala anagu marka baaqi maartay fulinayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka waxa weeye tacaawunka waxa meesha yaal waxa halkan ka muuqdo dhalinyaro Allah barakeeyo yar yar oo maartay khayrka yaani maartay ayagoo aayadaas ku camal falahay ama xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam iyo waxay u istaageen magaalada degmada yaani dadkeeda dhibaataysnaa oo maartay yaani danyarta ahaa inay maartay insha Allah ta'ala ay kaalmeeyaan ayagoo watacaawun cala birri ka wado waxay magaca waxay u bixiyeen yaani afur walaalka yaani sooman ama dhibaataysan marka dhalinyarada Allah barakeeyo maartay aqligaas waxa weeye wax loo sheegay ama lagu qulaamimaheena wax ayaga ay keeneen buu ahaa marka ayaga keenay ilaahay baa ya qalbigooda ku soo riday waxa weeye maartay hay'ad iyo dawlad kale uma shaqeeyaan magaaladoodii bay macnaha markay arkeen bay waxay gartay inay arintaas ay fuliyaan marka insha Allah ta'ala dad kale ayagana maartay qurba joogta kamid ah degmada u dhalatay iyo ayagii baa iskaashaday haday iskaashadeen insha Allah ta'ala khayrka hadda arkaysay keenay maxaa ku dhaca marka insha Allah ta'ala soonki horena saas kale u ahaa kan waa kan insha Allah inay ka sii fiicnayaan oo meesha ka fiican gaarsiiyaan aad bay u jecel yihiin waxyaalo badan oo inta ka badan inay qabtaan maartay insha Allah niyadooda aad bay ugu weyn tahay ayagii qurba joogtooda maartay ayagoo iskaashanaya degmadooda ayagoo la kaashanayo hadda meeshaan saaka maartay 100 qoys oo dadka magaalada la soo xulay danyarta ugu tabar yaraa بيا إن شاء الله تعالى أيقو مارتي باهيدا أفيرنا هيو يي مارتي إن شاء الله وحوصل ديارين قلب كان أركسان هرتين يالله وحاول إن شاء الله الله بركيان لنا حقوق ذي عقل وذي علم وذي أنت والله مارتي بركيو شيخ هذا خير الله إن شاء الله تعالى بارك الله فيك ولجدد وحي أنتهي إن يعني تدكي مساكين تها لو قلت لقالي إن أي كو أفران تدكي وحسود يبتي in aan gaarsiinay amaanadii inaan gaarsiinay haddana sida aad arkaysaan maaji ay ka muuqato in Allah intii wax soo dhiibatayna waxaan leenahay ilaahay badal khayr qaba ha idin siiyo insha Allah ta'ala waxaan aad u jeclaan lahayn waliba maadaama soon maanta 10 uu marayo in haddana mar kale yani la gaari karo hadii la heli karo mar kale in yani haddana aan isku dayda bal sidii loo heli karo hadii ilaahay qadaro insha Allah ta'ala in Allah intii wax dhiibatay waxaan leenahay badal khayr qaba Allah siiyo annagana amaanadii inaan gudanay fagaarahaas dhaxdiis inaan amaanadii gudanay ilaahayna oo marxaati ka yahay qofku ka darna aan siinay wixii loogu talagalay afurkiisa insha Allah ta'ala inta ka qayb qaadayna waxaan leenahay بدل خير قبل الله سيو انت شقيتي هو شقبتين محل لنا اجر حسنات الله كسيو ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا النجا وعن الصوماليات هذه يد اي نوغو سو دقن واهلني وانا لسيي بقول كيف بقول وادين مهد علينا وكم مهدسنتين الهي نين والبداق ماشي u baxsaday كيف بكتة وبحثة كيف مارك وارد ولبحي مدول بدن أمبورها يا الله دنتي فيه ما شو كباهية نول بالله كباهي ترى أنا كنا وانا لسي رساقة الناس أدرتان تهرشين وان هلي الحمد لله أنت لبحذي يا أنت صوب حسي يا أنت حقرت بغير الله سي الدنيا قرب الله ونحرزته وما سنتهين بقول سجالك وما سنتهين عليكم ساس وسوينا إن شاء الله بدر كان وان هلي سليتي سقشين كيسون وبحيس لأنه سوت وهلي العيت هذا الناس ولا عليه هلا بهن الهي الدنيا كرابك الليبني لم دعال يدان الله هاي إلهي والدين جيو نوه جيسي والبعض نو بارك لنا عليه سي
من أر خير قبون عليه نيشان إلهي سبحانه وتعالى مارتي وحيان سيسين الله إذن كل دور الله إنكو حفتيو أننا الله نو بركايو أذن كان محي هيدي واردينتنا الله قارسيو أولاد بار الله إنك يقدقو إلهي سبحانه وتعالى دبد قبك جرنا إلهي قبت قارد شرط هذا قري أدوم بالله أقول حرست أننا إلهي سبحانه وتعالى مارتي وحيان سيسين هنو بركايو صون كان أجر يا حسنات الله إنك سرقة ديبتين الله إنكو دور